cabdisalaam kusoo dhawa barnaamijkeena meeting point waxaad tahay film makerska ama directorka soomaaliyeed oo ilaa hadda u suurta gashay inuu sameeyo 7 film ay kamid yihiin 5 features films iyo 2 documentaries. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maxay ku dareensiinaysaa taas halagaas meeshaas aad gaartaa samaysay? waa maasan tahay cali waxay dareensiinaysaa in wixii aan jeclaa aan sameynayo oo aan hawsheedii aan ku jiro inkastoo wax badan ay dhiman tahay ilaa yiraahdo laakiin waxay i tusaysaa in aan bilaabay hawsheedii. marka maadaama hawsha aan ka hadalnay sidee u fududaa mu adagtaa hawshaas film sameynta inta laga marayo waxaas oo dhan aad ku khibrad u leedahay? horta filmku sameyntiisu igu soo orod maaha marka hadda aad daawatay 90 daqiiqo 90kaas daqiiqo waa hal saac bar buf way dhamaatay moogtay laakiin bilay qaadanaysaa daal fara badan niyadda oo ka daashid wax kasta oo adag oo maxaa ku dhahaa oo qof bini aadam oo soo mara way ku soo marayaan maxaa yeelay maskaxdiina waa ka daalaysaa jirkiina waa ka daalaysaa marka waa dhaqdhaqaaq fara badan oo xilli dheer qaata midda kalena ugu daran waxa weeye wax aad samaynaysid oo waxa weeye aadan ogeyn sida ay dadka uga heli doonaan. marka waxa weeye haddii aad guri dhisaysid naqshadiisa haysaa waa ogtaa gurigan inay dad ku hoyan doonaan inuu saan noqon doono laakiin filmka marka aad duubaysid wax aad ka warqabtid in dad arki doonaan in aan weligiis waa dambe la samayn doonin waxaas dhan ka murqato wax niyadaada aad ku kalsoon tahay oo kalsooni aad siisay hawshan baan sameynayaa meesha ila gaarto laana gaarsiin marka waa hawl aad u adag dhan walba marka laga eego. marka waxaa ogaan kartaa markaad dhammaysid oo weliba edit garaysid oo music wax walba ku dartid taas xataa waa weliba laakiin marka aad dadkii usoo bandhigtid iyaga go-aan ka gaaray shaqa ku milid adigu si kasta u jeclo markaad soo bandhigto ama meesha joogta ama aad tagto dadka daawadaan ama daawanayaan maxaa dareemay? horta wadna xanuun fara badan waa marka igu daran wey marka dadka ay daawanayaan ugu horeysa maxaa yeelay wixii farahaaga waa ka soo baxeen haddii xataa aad xalaysid ma ku noqon kartid ma saxsaxi kartid marka laakiin qosolku bilowdo xoogaa okay sheekadu meel fiican bay maraysaa wey marka aad baa ugu farxaa marka dadka ay kasoo baxaan oo ay ku mahadiyaan oo haddana daawanaysid filmka bartamihiisa aragtid wixii aad qortay oo life oo ordiyo wixii dadka ay enjoy gareynayaan marka taas farxad laakiin inta hore wadna kurkur fara badan bay leedahay aad iyo aad dadka sidee u qiimeeyaan filmaanta Soomaaliya markii soo bandhigo? Soomaaliya markaa joognay waxa xasuusataa sheelamooyinka aad baa loo geli jiray saf baa la geli jiray marka shaleemo toores la soo buuxin jiray shaleemo Soomaaliya shaleemo Zone shaleemo Xamar waxa xasuusta shaleemo Xamar state of the art shaleemo ahayd korka marka roob u soo doo way xirmi jirtay marka uu roobka jiraan wal furu jiray xidigaha arkaysa yani waxay ahayd meel romantic oo dadka la geeyo aad qurux badan dadkuna way xiiseyn jireen laakiin waxa moodaa hadda inuu isbedel dhacay isbedelkana waxa moodaa in dhaqamo kale oo fara badan aan moodid inaan qaadanay isla mar ahaantaana hadda haddii aad u fiirsid qof baa weydiinaysa waxaa leedahay xaafidee degan tahay markaasuu ku leeyahay wax xaafid hebel baan deganay Soomaali ma degana yani waxaa moodaa qofkii inuu Soomaalida ka cararayo hadda qof laba qof oo iswareysanaya waxa laga yaabaa inuu yiraahdo meel hebla aan ku wada kulano markaasuu leeyahay meesha Soomaali badan baa laga dhaaf meel Soomaali joogin ige fadlan Soomaali meel aan joogin ige Soomaalinimadii waxa noqotay wax laga xishoodo oo laga cararo meeshii lagu faani lahaa oo kor loo qaadi lahaa marka filmaantii baa marka waxay noqotay in wixii Soomaaliya amoodid oo dhanba in laga cararayo taas dhibaato weyn bay noo geystay maxaa yeelay haddii aan maanta anaga la caawin oo la imaanin oo tigidhadii la iibsan waxa weeye qofkii barito wuxuu leeyahay waay aan isugu dhibayaa oo waxaan dhan u sameynaya aniga waa qalbi adkaay yani waa niyad adkaay 7 ilaa hadda maraya ma ku faraxsanay sheekadu meesha ay marayso run ahaantii
sheekada kuma faraxsani laakiin waxaa niyadda ii dhisa markaan arko gabar yara ama wiil dhalinyaro ah oo anoo meel iska maray inta ii yimaadaan yiraahda hawsha sameynaysid waa hawl khatar ama oday Soomaali ama maamo Soomaali inta ay timaad tiraahdo maandhow wax fiican baa sameysay ciyaalkayga maalin walba daawada yani af Soomaali ku bartaan markaas baa dhahaa okay ha joojinin wad laakiin marka dhanka kale eego daaqada dhinaca kale aan furo waxa arkaa waxyaalahan tirada badan oo niyadda oo dhan ka daminay marka way ficnaan lahayd dadkaygu waa rajeynaya inay maalmaha kamid ay fahmi doonaan haddii aad filmaanta aadan u shidin ciyaalkaaga filmaanta Soomaaliga ama hadda dhalinyarada aadan daawan Soomaaliga waxay noqonaysaa in uu cunugii uu tago uu daawado filmaanka hadda waxaaba dhibta ugu weyn oo haysta dadka filmaanta Soomaaliga sameey filmaantani way yiriin maxaa yeelay lacag fara badan oo soo gashay qofka sameey malaha isku joojinaya ma fahanteen marketka uu yiriyaa man la sii kobcin oo man la sii dhisan wadan caawiyo malahan dawladna caawiso malahan anaga xasal gareynay kaligii marka waxaa timid filmaan Nigerian Nollywood maxaa ku dhahaa filmaan kale laakiin filmaantaas maxay wadaan waxay horumarinayaan dhaqanka Nigerianka luqadooda dharkooda jiritaankooda laakiin filmaanteena maxay sameeyeen Soomaaliga lagu baranay dhaqan Soomaaliga laga baranay gabdhaheena dharka xiran jireen dhaqankii hooyooyinkan aabayaasheen waxaas oo dhan waa filmaanteena ku jiray laakiin hadda ka tagtid kaayagii film Soomaaliga ka tagtid waxay noqonaysaa inaad familkaaga iyo reerkaaga ay bartaan wax kale oo aadan ugu talgelin marka waa jecelnahay dadka inay na bartaan noo yimaadaan bandhigyada ay yimaadaan oo ay yani ay sidaas maartay noogala qayb qaataan حتى لا سير لهاد دتك عصب أو فيلمات أنا سمعان جعلي فيلم ميكرز كا لندن كنا horta talo waxaan siin lahaa waa very simple and wax kasta oo aad rabtid inaad samaysid haddii aad rabtid inaad samaysid film and go for it samee xabad haddii aad haysid 5 daqiiqo 5 daqiiqo dub 5 daqiiqo barito 10 bay ku noqon marka ugu dambeysay film caadi ah sameynaysaa ha ku fikirin inaad samaysid filmka adduunka ugu fiican fikirku fiican filmka adduunka ugu fiican qof walba uu rabo inuu sameeyo laakiin su'aashu waxa weeye maxaa weeye filmka adduunka ugu fiican 10 qof meel soo istaaji waxa tiraahdaa filmkee adduunka ugu fiican qof walba mid gooni haystaa marka hays oranin anigu ma rabo inaan sameeyo wax saane waxaan rabaa inaan sameeyo wax 100 kun oo qof ay yimaadaan oo intaas oo kaamara lagu duubo saan weey fikirkaas uu fiican yahay laakiin istaag hadalka jooji samee ballan ba ka qaadaya wax kasta oo aad sameeysid waxay doonaan noqdaan qof ka heliya baa imaanaya habaqan لكن قسم ما أنا دورت شرعية فيلمان تدكسن سيد لو سمعي ها ويتاي إن الشرعية فيلمان تدورت ويتاي لكن الشرعية اسمحيين waxyaalo basic ah jira qasab ay ku tahay qof every film makers inuu maro waa garanaya okay creativity inta kale waa creativity laakiin waxa ku sheegaya in filmka adduunka ugu fiican oo la yiraahdo waa filmka oo ilaa hadda la siiyay number 1 hatta marka aragtina film baratid lagu bariyo waa Citizen Kane afartameeyadii baa la sameeyay ninka filmkan sameeyay nin filmaanta yaqaan ma ahayn nin raadiye ka shaqeyn jiro ahaa Mareykan fiiriya filmkaas ilaa iyo maanta film lamida oo la sameeyay ma jiro sharciyay yani oo raacay ma jiro film buu rabay inuu sameeyo dadka xataa way la yaabanaayeen filmkii uu sameeyay waxa noqday film hadda ilaa hadda jaamacadaha lagu barto oo iskoolada lagu barto marka waxaan ka wadaa sharciyo way jiraan loogu talgalay film sameynta laakiin sharciyadaas qof baa sameeyay make your own rules just make it happen samee khasab maaha in aad raacdid ana oran may inta kaamar qaatid darbiyada iska dub oran may waxii macquul waa macquul moqtay laakiin film hadaart inaad sameeysid hadda sharciyada laba ka taqaanid samee hadda mid ka taqaanid samee filmka ku xiga 5 kala baranaysa filmka ku xiga 7 kala baranaysa wixii practical baranaysa laakiin hadda tiraahdo wax sameyn mayo ee waxaan rabaa inaan sameeyo maxaa ku dhahaa
filmka Titanic baa raba inaan sameeyo weligii film ma sameyn no qofka Titanic sameeyay James Cameron inta film ka horreysay soo sameeyay xisaabu ku soo bilaabay waa in horta waa in aad bilowdaa wixii marka aniga ahaanteeda waxaan ku boorin lahaa wixii aad jeceshahay ilaahu ma noqoto sida dheriga loo sameeyo waa in maalmaha kamid ah aad tiraahdid hadalka waan joojinayaa dheri baan sameynayaa silan filmaantaada marka la fiiriyo laga bilaabo rajo ilaa ambad iyo gabarha loo doono filimka ambad anigana sharaf u yeeshtay inaan private screeningiisa ka qayb galo aad aan ula dhacay waxaan ku waanina qof walba filimkaasiyati inuu tago waa filim aad u fiican loo sameeyay si khatare waxaan rabay inaan ku weydiiyo aad ugu duwan yahay filmaanta kale adiga aan sameysay ama Soomaali kale ay sameysay si kale inta loo sameeyay sheekada way degan tahay comedy badan ma laha waa filim kugu soconayo marka maxaa keenay habkaas inaad saas ugu bedesho waa maasan tahay ambad sheeka ahaan waa sheeka ku saabsan wiil dhalinyaro 18 jir oo qurbaha yimid waalidkiis joogan oo sidii nin weyn oo kala rafaadka u marayay si 30 jiradii 40 jirada waxay marayeen ku dhacay oo soo 18 jir xataa uur uu ku soo baxay oo noqonaysa inuu guur iyo waxyaalo uu shaqo kulan yani uusan gaarin marka si sheekadaas aan u soo bandhigo waxaan ku fikiray in aan sheekadii waa sheeko Soomaaliya laakiin luqadeena marka aan isla hadlayno baad ka ruuxay Soomaalidu waa 10 qof 9 ba hadlaysa 9 kood hal mar bay u hadlayaan halkaas qof baa ay la hadlayaan qofkaas laakiin uu fahmaya 9 kood waxay sheegayaan dhaqankeen waxaana dad hadalka yani ku dheer waxay dhahan dadka jinniga oral society marka haddii aad damacdid inaad kaamarad inta aad duubto film aad Soomaaligi aad duubto xoogaa hadalkii siinkii way dheeraanaysaa yani filmka waxa loogu talagalay 90 minutes maybe 120 minutes u baato yani filmaanta westernka marka hadalkii oo dhan hadaad inaad sameeyso wixii dhan way dheeraanaysaa marka waxaan ku fikiray marka in aan Soomaaligi dialogue uu noqdo dialogue quick ah laakiin isla markiina aragtidii ku arkaysid yani maanta hadii aan kaaga sheekay wax kasta aan soo sameeyay luqad ahaan way fahmaysaa laakiin marmarka qaar kood waxa jira waxyaabo fara badan oo qofka filmka daawanaya uu fasiran karo meesha iyadoo aan afka aadan ka sheegin midda kale waxa weeye dadka filmka daawanaya dad ma fiicna inaad ka dhigtid audience-kaaga dad dam ah oo aan waxba fahmeyn filmku waa inuu qofka maskaxdiisa uu ka shaqeysiyaa waa in laba ku dar afar waa inuu qofkii yiraahdo inuu yani maskaxdii maarta marka filmka daawanayo in maskaxda ay shaqeyso marka macna ahaan waxaan rabnay in uu filmku uu noqdo film degan oo sheeka ahaana sheekadiisu ay tahay sheeko simple ah oo tartiib biyo waadi ku socda oo qulqulaya oo hadba waxyaalo surprise ay ku jiraan sababtii maxay ku dhacday xagee ka timid sheekada asaas ku socotay ilaa sheekada ay ka dhamaato oo surprise iyo wax walba oo qofku maartay oo halkaas ay sheekadu ay ku gabagabowdo buuqun u yiri yahay ay ta wax saral ah oo very simple waa aragtay iska waxa way sheeko caadi u socota oo labadeena sheekaysanayno very simple